nabigeena Muhammad meeshuu ku dhashay Makka meeshuu ku dhintay Madiina sallallahu alayhi wasallam على هذا على ريتنا من كتاب كان فخامة نبي كان محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخوة الإيمان والإسلام يا أخوات الإيمان والإسلام قبلها مسلمات كأورالهنا إن ليسنا يا أيان سلامنا أولا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كذب waxaynu hor istaagaynaa maanta hadduu alla yidhaahdo aynu ka hadli doonaa hadduu alla ina waafajiyo aayad ka mida qur-aanka kariimka ah oo ka hadlaysa inoona sheegaysa xikmada ilaah uu u abuuray bani aadamka insiga iyo jinka gaayatu wujuudi linsaan wa wadiifatu linsaan fi hadihi alard ujeedada nolosha bani aadamka laga leeyahay iyo wadiifada uu ka hayo noloshan adduunka iyo dhulkan uu ku nool yahay maxay tahay waxaa la yidhi waxaa muhim ah qofka muslimkihi inuu ka jawaabo oo uu fahmo 3 su-aalood oo muhima jawaabtooda su-aasha koobaad waxaa weeye maa huwa masdaru wujuudi linsaan bani aadamka jiritaankiisu xaggee buu ka yimiday su-aasha labaadna waxaa weeye maa huwa siru wujuudi linsaan wamaa hiya wadiifatu linsaani calaa hada alard calaa hadihi alard maxay tahay sirta ka dambaysa joogitaanka bani aadamku uu joogo dhulkane uu ku nool yahay wadiifadu uu dhulkan ka haya iyo noloshan adduunkuna maxay tahay su-aasha saddexaadna waxaa weeye maa huwa masiiru linsaani wamaa muntahaah muxuu yahay mustaqbalka uu ku dambayn doono bani aadamku masiirkiisu muxuu yahay intaba waxaa inooga jawaabay qur-aanka kariimka ayuu rabbi inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala bani aadamku xaggee buu ka yimiday miyuu iska ahaaday uun ma dabiicada keentay maya ilaah baa abuuray xikmo ayuuna u abuuray waa maxay وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلهي با أغيسيس بحيي وحو الشيغي ملائكتي وحو الملائكي وإناد أغاتان وحان أبوري أنكين يا دولكن كذا تخليف كل دولكن مسؤول كأه oo wixii aan doonaya anigu fuliyo ayaan abuuray buu rabbi subxaanahu wa tacaala malaa'igtii way yaabeen waxay yidhahdeen rabbi allow sidee baad dhulka u keenaysaa kuwa wax dilayaan oo wax fasaadinaya annakii adiga uun kuu tasbiixsan oo cibaadadaada khaas u ah ayaaba joognaa rabbi wuxuu yidhi waxaan ogahay waxaydaan ogeyn rabbi wuxuu ogyahay in bani aadamka ay ka mid yihiin alrusul alambiyaa alshuhadaa الأولياء ضدك وناكسنا التوحيد كسو هجامية إنه كمديهين سيدا آوجد ملائكتي امتحان بك قاضي وحيالها دولك كو أبورن أيوم مقعدوا ذا ويدي ملائكتي ما يقرن محيا يقوح شقاء كهيان ملك آدم عليه السلام أبهن أيال ويدي وحي بكوذ الجوابي مركز ربي لوتا حكمة إذين شيقي مركز ربي بو كرامي آدم
malaa'igtii buu u sujuudayay maaha sujuudi cibaadada waa sujuud salaameed way oo sharafeed halkaasuu ilaahay nebi aadam ku ikraamay malaa'igtii buu u sujuudsiiyey waxaa loo dhiibay miftaaxii iyo hogaankii dhulka kolka ilaah baa inoo abuuray inaan khaliif ka noqono isaga oynu fulino ujeedada rabbi uu ka leeyahay noloshan su-aasha labaadi oo ah bani aadamku xikmada uu jooga maxay tahay dhulkan taana rabbi baa inooga jawaabay waa aayadda aynu maanta hor istaagay hadduu alla yidhaahdo wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinka iyo insiga wax kalaba oomaan abuurin buu rabbi yihi waxaan u abuuray inay aniguni caabudaan su-aasha saddexaad oo ah masiirka bani aadamku muxuu yahay xaggaynu ku dambayn doonaa maynu iska dhimaan oo ciidda ayna cunaysa waa khalaas maya xikmo weyn ayaa ka dambayso kolkii aynu dhammaysano nolosha dhulkan alla inoogu talagalay rabbi baynu hortegi doonaa nolosha barsakha ama xeraguusha markii ay dhammaato rabbi baa la hortegi doonaa wuxuu inaga xisaabayaa rabbi nolosheena iyo cumrigii uu ina soo siiyey wixii aynu ku qabanay iyo wuxuu inaga doonayay ma fulinay wa anna ilaa rabbika almuntahaa meesha lagu dhammaanay la hortegi doono waa rabbi alaa ila allahi tasiiru lumuur kolka aayaddan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ayaynu maanta hor istaagay hadduu alla yidhaha ilaah wuxuu inoo abuuray walaalayaal rag iyo dumarba insi iyo jinniba cibaadadiisa wuxuu yihi mufasirka weynaynu wada naqaano ibnu kathiir raximahu llahu tacaala wa macna alaaya aayadda macnaheedu wuxuu yahay ana allaha khalaqa alcibaada liyacbuduuhu waxdahu laa shariika lahu aayaddu waxay inoo sheegaysaa ilaahay inuu abuuray addoommadiisa inay isaga oo keliya caabudaan oo ina cibaadada waxba la wadaajinin laa malakan walaa nabiyan walaa waliyan ilaahay oo keliya qofku markuu cibaadaysan haddaad tukan idaa kunta tusallii fasalli lilah idaa kunta tasuumu fasum lilah tatasadaqu tasadaq lilah shay walba ilaahay aawigii u fal adiga oo cibaadada u khaalis yeelaya idan rabbi saasuu inoo sheegayaa subxaana wa tacaala kolkaa wuxuu yihi sheekhu uu sii waday faman adaacahu jaazaahu atama aljazaa qofkii rabbi adeeca oo cibaadada laga doonayay sidii uu rabbi u doonaya u fuliya ilaahay abaal gud weyn ayuu siinayaa jannooyinkiisa ayuu ku abaalmarinayaa uu ka raali noqonayaa nolol waaraysa ayuu helayaa dhibaato oo dhan uu ka baxayaa waman casaahu cadabahu ashadda alcadaab qofkii caasiya ee garab mara ujeeddadii rabbi uu ka lahaa kaasi ciqaab kulul iyo cadaab ayuu abaalkiisu noqonayaa walciyaadu billah allah inaga nabadgeliye kolkaa uu sii wada sheekhi wuxuu yihi rabbi wuxuu inoo sheegayaa ana allaha gayru muxtaajin ilayhim inuusan allah u baahnayn makhluuqiisa bal hum lmuxtaajuuna walfuqaraau ilayhi fi kulli axwaalihim iyakaa u baahan had iyo jeer fahuwa khaaliquhum wa raasiquhum isagaa abuuray isagaana arsaaqaya sidaa awgeed aayaddu wuxuu rabbi ku khatimo uu yidhi maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yudcimuun anigu risq ka dooni maayo inay imasruufaan ama ay cunto isiiyaanna kama doonayo ina allaha huwa arasaaqu du lquwati almatiin isagaa wax walba arsaaqa quwadiisuna way weyn tahay rabbi subxaana wa tacaala awood buuxda ayuu leeyahay marka wuxuu rabbi inaga doonayaa isagaa wax walba ina siiye inaynu caabudno u mahadnaqno aynu garanno nicmadaa uu ina siiyey iyo fadligu inagu lehay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi kolkaa ibnu kathiir uu sii waday raximahu llahu tacaala xadiid alqudsi ayuu soo arooriyay imaamu axmed iyo tirmidiya keyrkood wariyeen oo uu nabigu ku leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam fi ma yarwiihi can rabbihi isagoo rabbigii ka warinaya waa xadiid alqudsi baa la yidhaah rabbi wuxuu ina leeyahay ya bna aadama tafaraq licibaadatii amla sadraka ginan wa asudda faqrak ya bna aadam waa xil culus ibnu aadam ko bani aadam oo rag iyo dumarba tafaraq licibaadatii cibaadadayda u gacan bannaanow wax walba ka horamari aniga cibaadadayda raalli ahaanshahayga ka horamari raalli ahaanshaha dadka iyo wixii soo hadhay oo dhan hadday noqoto ilaahay cibaadadiisa iyo qof kale waa inaad ilaahay aada horamariso subxaanahu wa tacaala haddii lagugu yeedho macsiye ilaahay waa diidaysaa laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq xataa aabbaha hooyada caruurtaada ninkaaga midku doona ha noqda haddii ilaahay keyrka caabud lagu yidhaahdo abadan yeeli maysi taasi macsiye maya